jaamacado kan galay xamar horta jaamacadu lacagtu waxay free chiefku waxa free pocket money 240 shilin waagaad joogtina waa qaadanayna inta maxaa dheeraa jaamacadu free waxa kaliya aan gadan karnay waxay ahayd hadda hore u sheegay waxaan ku sheegay meel kale aan ku sheegay waxay ahayd xataa textbookska dowladana siin jirtay wax lagu baranayo waxaan qaadan jirnay oo kaliya caafimaadka free baa waxa nagu taal ambulatory weyn ba meesha nagu taal caafimaad free waxbarasho free chief free 240 shilin oo pocket money iyo marka ka soo baxdo oo shaqo diyaar ku tahay bela ma aadis hadaa u shaqo adag jirtaa laakiin hadii aad rabto inaad shaqo shaqayso aad kala dooranaysid shaqo waxaan xasuustaa jaacada xagga sinaha Axmed Barre aan mid boos meelan u joogo gayrti cusbeedo dambe gayr hore jirtay moogta xereen militariga waaga hore daynire tii dambe cusbeed baad ku aragtay marmaynayaa weyneyd bildi ma deganayn la yiraahdo bildan laba marnay inuu ahaa farsamadii waagaas jirtay buldanka Soomaaliya kastan ku sheegay marka soo gasho nalka daaraysa Soomaa marka iska bixiso sirta aad tagto nalka korkaaga ka dimanaysa sirta madaxeedu ku yaala ADC iska markaa Mareykan tagay doon baan degay Lewis House farsamada kama jirin Vanderbilt University markaan tagay farsamada ma ka jirin wallahi baan hadda meeshay tahay waxaan maraynayaa inay iska baabaaday laakiin that is the environment ki waxbarasho ee xamar yaa ma soo kornay 240 shilin oo markaad u baahato ama sinema ku aad ama ambulo ku laakiin this was the quality of education of Somalia بدك تيادو waxbarashada ku sheegay midda kale yani heerka ay ahayd anigu markii aan ka tagay xamar oo aan aaday Mareykan tagay waxaan galay Tovey GRE yani laga qaaday imtixaan laga qaaday markaan tagay 17kii August baan ka tagay Mareykan 1986 shalaatinkii Augustna class baan fadhiyay microeconomics يعني waxa u baahan tahay inaad lagu soo maxaa la yiraahdaa dhiso dadka laga daba barbaratay ma jirin up to standard macallimiinta bugaagta aqoonta waxbarashada